wanaagsan daawadayaal iyo saaxiibayaalba meel kasta oo nagala socotaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka toddobaadka iyo Toronto oo xilligan idinkaga imanaya stuudiyahayaga galbeedka magaalada Toronto ee dalkani Canada. barnaamijka toddobaadka iyo Toronto maanta hayaa haddii Allah awood leh ogolaado waxaan ku soo qaadan doonaa waraysi ku saabsan guud ahaanba rabshadaha iyo waliba deganaansho la'aan laga soo sheegayo guud ahaanba deegaanada dalka Itoobiya gaar ahaan magaalada Addis Ababa. haddaba si aan arrimaha wax uga ogaano ayaa waxaan tiigsanay Xuseen Maxamed Nuur oo ka mid ah xubin golaha dhexe ee ONLF oo ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Xuseen Nuur ayaa wax badan ka og guud ahaanba geedi socodka siyaasadeed ee dalka Itoobiya waxaana Xuseen wax ka weydiin doonaa guud ahaanba halgankii ONLF ee muddada 30 sano ah ka soconayay deegaanada Soomaalida ee dalka Itoobiya hoos yimaada oo ay ONLF 2 sano iyo dhowr bilood ka hor nabad la qaadatay xukuumadda Abiy Ahmed. maxay ka faa'iiday ONLF muxuu yahay waajibka ka saaran xornimo ay gaarsiiso guud ahaanba dalka isaga ah. Xuseen ku soo dhawow toddobaadka iyo Toronto magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Xasan. محمد ودوه أدر أدب ما حسنتهاي وهاجد حسينو دوحة آيات كسوجنتهاي وحن آد كجم هاد علينا سيدا وناكسن إذ برنامج كانوا قلات بل إن أنا شعب كصوماليد وحكلس عسينو وحيابها ليلة حنبارسن بريها هندم بلغسو شيء يدلك إثيوبيا أو قوميات فربضان أو صوماليا يكونوا شهاي أضو سوكو بيمحيط حالة إثيوبيا حلقاني حالة إثيوبيا waxaa lagu tilmaami karaa waxa weeye isbedel aan hadda ka hore uga dhicin Ethiopia ayaa ka dhacay 2 sano hadda ugu dambeysay sababtoo tahay Ethiopia taariikh ahaan marka la yiraahdo maamuladu waxa weeye dhiig far badan ayaa ku daadan jiray isbedelkooda waa la kala adkaan jiray laakiin hadda isbedelka wuxuu noqday isbedelka hadda ka jira waa isbedel ku yimid hab kacdoon shacbi ah oo muddo dheer socday ilaa maaragtay 5 ilaa 10 sano hadda ku dhow muddadu soo bilowday marka shacabkii ayaa qasbay inuu hadda isbedelkan yimaado inkastoo nimanka hadda EPRDF xukunka hore u hayay isla xisbigii isbedelay dhaxdiisu isbedelay oo nimankii hore maaragtay laakiin xisbigii hore nimankii hore TPLF nima la yiraahdo oo Tigray ayaa ku xoog badnaa iyagii ayaa laga qaaday qowmiyadihii kale ayaa marka xisbiga EPRDF oo afar ahaa saddexdii kale ee maaragtay kamid ahaa ayaa u heshiiyay oo yiri sidan kuma sii socon karna shacbiga oo dhan ma layn karna waxa weeye bood baa loo qaaday marka waxa la oran karaa waa isbedel kacdoon revolution ah oo markii ugu horeysay Ethiopia ka dhacay marka taas ayaa keenaysa in isbedelkan cusub ilaa ay hadda uusan saldhigin oo la qabsan waayo waaga Xuseen balse isbedelkan uu keenay kacdoonka shacabka sida aad u sheegtay haddii aanu dhigo haddiiba mar xisbiga ONLF oo maanta noqday xisbi siyaasadeed oo adanihiisa ka raadinaya gudaha dalka Itoobiya si nabada iyo dawlad deegaanka Soomaalidu aad moodid in ay laba xisbi kale yihiin oo dawladda deegaanka Soomaalida ay ku biirtay xisbiga Abiy hogaamiye ee PPP maxay tahay danta ugu jirta shacabka Soomaaliyeed kacdoonka isaga waxa weeye wax fara badan baa ugu jira sababtoo ay tahay waxa weeye nidaamkii hore aad la socotaan TPLF ta EPRDF magacaas iska watay laakiin xaqiiqan ay TPLF ahayd shacabka Soomaaliyeed ogaadaya dulamkii ugu weynaa iyo xasuuqi ugu fara badnaa oo ilaa iyo hadda la helayo maaragtay mass graves la helayo ama qabuuro jamaaci la helayo ayuu ka geystay dhib fara badan buu ka geystay gabood fara badan baa ka dhacay marka isbedelkan waxa la oran karaa waa isbedel maaragtay runtii shacabka u keenay maaragtay xasilooni iyo in maaragtay bal aqal maaragtay laga daayo dhibaatadii taas waa mid weeye mid kale wuxuu ogolaaday isbedelkan in ururadii oo kamid ahaayeen ONLF afar urur oo kamid ahaa oo nimankii hore ee maaragtay TPLF ta ay ku tilmaameen inay yihiin argagixiso oo aan dalka soo gali karin oo maaragtay shacab ahaan iyo xubno ahaan iyo urur ahaanba loo ugaarsanayay ay waxay yiraahdeen waan ka qaadnay xayiraadii wayna iman karaan barnaamijkoodii siyaasiga ana dalka way ka fulin karaan maxaabiis fara badan oo boqolaal ama kumanaan ah oo gaar ahaan dalka ogaadaya ku xidhnaa iyo Addis Ababa ku xidhnaa oo arrinta daraadeed u xidhnaa way soo sidaayeen marka waxay nimankii dib ugu noqdeen maaragtay in bal la yiraahdo okay
nin walba barnaamijka uu wato ee siyaasiga ah si nabadgelyo ah ku fushado shacabkiisana la wadaago marka waxa weeye waa isbedel runtii aad iyo aad maaragtay fundamental ah weeye intuu sii socon doono se ilaahay baa og waaga xuseeno laakiin heshiiskii ONLF oo aad xubin ka tahay golaheeda dhexe iyo xukuumadda uu hogaamiyo Abiy Ahmed ku dhexmaray Asmara oo caasimadu ah Eritrea waxaa la sheegayaa in ayna xubnaha golaha dhexe iyo guddiga fulintu intuba ka wada raali ahayn oo uu ku yimid si jujuub ah oo qolo gooni ah oo wadato arrintaas ma jirtaa wax kasta horta markay arrin siyaasadeed markay tahay waa lagu kala aragti doonaanayaa shaki kuma jiro oo aragti doonaanshuhu waxa weeye waxay ka mid tahay waxyaabaha maaragtay ururka khaasatan oo NLF uu maaragtay horumarkiisa ka mid ah in waxyaabo farbadan lagu kala aragti doonaado laga doodo kadibna maaragtay aqlabiyadda loo maaragtay dhanka u bata loo hoggaansamo taas waxa weeye waa mid weeye laakiin waxa iyada midaba ka horeysa isbedelkan ka dhacay Ethiopia oo ahaa maaragtay isbedel aan la filaynin runtii oo si maaragtay kadis ku dhacay isla markaana la yimid waxyaabo fara badan oo maaragtay muujinaya in maaragtay waxyaabo fara badan oo muujinaya in yiddiilo ay leedahay waxay qasab ku noqotay marka ururka ONLF in maadaama uu nimankii maaragtay xukunka la wareegay ay yiraahdeen waxaad maaragtay xaq u leedihiin una fasaxantihiin barnaamijkiina siyaasiga inaad gudaha aad ka fushataan shacabkiina la wadaagtaan inta ugu badan marka ururka siyaasiyiintiisa golihiisa dhexe waxay u arkeen inay arrintaasi ay tahay maaragtay fursad sida ayaana lagu soo galay sida ayaana noqotay laakiin gadaal wixii ka dhashay iyadu waa marxalad kale iyo aragtiyo kala duwan oo waa laga yaabaa in laga qabo laakiin soo gelitaankii hore iyo habkii loo yimid midkaas oo ah laakiin waxaan ognahay ka saxaafad ahaan in gudoomiye ku-xigeenkii ururka ONLF Maxamed Ismaaciil oo ilaa ay hadda ka maqan yahay uuna qaadanin heshiis oo uu ku dhagan yahay wali in Ethiopia qori caarad in wax looga raadiyo arrintaas Maxamed Ismaaciil iyo dadka la qaba ONLF ma ka dhaadhicin waayeen in gudaha xorriyadda laga raadiyo amaba Ethiopia lala noolaado barnaamijka horta waxa weeye maxamed waa run gudoomiye Maxamed Ismaaciil isagu sibuu u arkaa waxa laga yaabaa waxyaabo fara badan inaan maaragtay isku aragti ka nahay meelo kale inaan ku kala aragti duwannahay meelo fara badan inuu ku saxsan yahay meelo fara badan in laga hayo waa laga yaabaa aragtida in laga hayo iyada waa suurtagal weeye laakiin ugu dambeynta waxay tegaysaa in wixii maaragtay lagu heshiiyey Ethiopia barnaamijkii ballaadhnaa ee maaragtay qowmiyadaha dhan ay ku heshiiyeen inuu sidii loogu heshiiyey u socdo iyo inuusan u soconin mustaqbalka ayaa kolley ayaa sugi doona laakiin marxaladda hadda la marahayo waxa weeye marxalad ku habboon in shacabka Soomaalida khaasatan shacabka Soomaaliyeed ogaadaya uu ka duwanaa qowmiyadaha kale si aad uga duwanna waa loola dagaalamay si aad uga duwanna maaragtay waxaa loogu geystay maaragtay gabadfallo fara badan oo ay adag tahay in maaragtay la iska indhatiro marka waxyaabo fara badan baa u baahan in maaragtay shacabka lala wadaago oo dib maaragtay loogu sameeyo abaabul looga galo وهجاج أسيدا نص إنه إثيوبيا أو عجعجين سبقول مليون أو قومية ذك الدوان أي قومية الصومالي ذو ميس كلفت إذا إن أو حلقة يبسطه بس واحد موجود كلفوجان شو إزيو إسفهان لآن أرد حيث قومية الصومالي ذا إثيوبيا كوهوس نول سيدي كل إكرتا مربى هدي قومية إثيوبيا سياسة دكوها الجميع آمن سيهين إثيوبيا ذا عصوب أبي أحمد إني تهمد وضع إني سوعرس حكومته الدسابة لوجت تلين جيرين مد لمدا موين الصومالي أمو قنن مد أن إيضو ننكرون غير كهو هراء أو أنكسو جيسا بلغو آمد الدسابة كيما دمجالة الجيجيجا horta waxyaabo fara badan oo aanan ka ogeyn Ethiopia gaar ahaan xitaa aniga hadaan iska soo qaado aanan ka aqoonin ba horta aan aragnay oo aan baranay intaan maaragtay labadii sano ee hadda ahayd Ethiopia anaga waxaan u haysanay inuu yahay wax maaragtay homogeneous oo isku xidhan oo barnaamij siyaasi ah iyo hadaf wada leh oo anaga duulaan nagu wada ah laakiin xaqiiqada waxa soo baxday aqlabiyada hadda ugu badan in aanu in maaragtay aqlabiyad fara badan
haddaanay ahayn boqolkiiba 80 ama boqolkiiba 70 haddaanay ahayn inaan isku fikirnahay qowmiyado fara badan oo waxaa jira sida nadii u dulmanaa ama nagaba maaragtay dulan badnaa baa jira oo hadda xuquuqdooda maaragtay u dagaalamaya qaar fara badan oo xitaa annaga nagaga horeeya baa jira nagagana dhiiran maaragtay dalbashada xuquuqdooda marka waxyaabo fara badan baa maaragtay Ethiopia ka soo karsamaya maalinta haddaad u fiirsato xitaa qowmiyadan oromada oo ah qowmiyada ugu badan iyo qudhigooda isku fikir ma aha boqolkiiba aqlabiyad fara badan haddaanay 70 ama 80 ahayn way ka soo horjeedaan fikirka uu wato ra'iisul wasaaraha uu wato qowmiyadaha dhubuubka oo iyagana aad u fara badan way ka soo horjeedaan fikradan uu wato marka fikrado fara badan ayaa la isaga horjeedaa nimanka Tigreega ah qudhigoodu sibay iyagu qudhigooda u arkaan inkastoo ay yihiin niman cadow ah oo dambiyada ugu badan dalkanaga ka galay inay iyaga yihiin haddana waxyaabo fara badan baanu ka midaysanahay marka Ethiopia sidii aanu hadda hortii hore u haysanay way ka duwan tahay وهاجا حسينو ONLF waqtiga ay Ethiopia gudaheeda ku soo dhamaatay kadib waxay samaysay doorasho xilka ugu sareeya ee gudoomiyenimo ONLF wuxuuna ka dhacay magaalada Goday dad fara badan oo aan soo xansaday waxay sheegayaan sida wax u dhaceen inayna ahayn si ku haboonayd in uu wax u dhaco ka golo dhex ahaan iyo aqoon-yahan fikradaada arrinta ku wajahan maxay tahay waxyaabaha fara badan oo iska umuuraha hoose ee ururka gudihiisa way yaraha adag tahay in maaragtay saxaafadda public looga hadlo laakiin khaladaad fara badan way dhaceen khaladaad fara badanna waa la saxay welina saxitaankii wuu socdaa laakiin ugu dambeynta waa inaad ku xisaabtataan meeshan waa meelna Soomaali baanu ka nahay Soomaalida wad la socotaa mashaakilaadkooda iyo cudurradooda waa la socotaa isma maaragtay waxyaabo fara badan oo isbedelo fara badanna way jiraan laakiin waxaan oran karaa waxyaabo fara badan oo dhacay oo khaladaad ahaa waanu saxnay waxyaabo fara badan oo jirana waanu sixi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo وهاجاك تكلو أن جعله إن أنكو ويديو أو أنا مسنا هاي قف كستو أو صوماليا إنه هنقلتاجا يوحى كم ذا الدولة ده وهو جامي محمد عبد الله فرماجة إن منك صوماليا تلاذا هذا هاي سوحي دولة إثيوبيا ودي بتحوبين سرة أو كم ذا جبهة ONLF إلا يهدا رالي جلين بوحدة كما هي إنه حكومة داس قعنت أوجليسي قلب نجح دلك إثيوبيا بل سوحان أجنه هاي حبنيه أوجس الرئي ONLF إني أديسابية أسمربا كل من مدحوين محمد عبد الله فرماجو أرنتاسو سداي ودعدي arrintaas waxa u dhacday horta waa la kulmay waa la socotaayo arrinta markii uu dawladii farmaajo iyo khayre ra'iisul wasaarihii hadda la casilay arrinta ay fuliyeen ummadda Soomaaliyeed gees ilaa gees horta aad bay uga xumaadeen waxaana sharaf u ahayd qadiyadanada iyo ururka iyo maaragtay dhikii la qabtay labada intaba in ay ummadda Soomaaliyeed aragtay in maaragtay dambi laga galay keligii ma ahayna dad fara badan ayaa laga dhiibay Soomaaliya Hargeysa laga dhiibay gobolada Puntland laga dhiibay Gaalkacyo laga dhiibay Xamar ma wili laga ma dhiibay Xamar markii ugu horeysay ay ahayd meel xarunta maaragtay caasimadda ay ahayd wax ay u qaraxday midaas ahayd waxa meel fara badan ba maaragtay ururkan siyaasiyiintiisa iyo waad la socotaan xitaa qaar fara badan lagu dilo ilaa hadda maaragtay ay ku shiideen marka baarlamaankii Soomaaliya iyo waad la socotaa aad baa looga dhidhiyay marka sharaf u ahayd farmaajo iyo khayrna sharaf dhacbay u ahayd wayna ka garaabeen waa la is arkay way la kulmeen gudoomiyihii hore admiral maxamed cumar cusmaan iyo madaxdii halkaa joogtay way qirteen inay khalad galeen way ka cudur daarteen laakiin waxay ilaa iyo hadda ay ka maageen in ay si public ah ay uga cudur daartaan taasina waxa weeye iyagu unbay waxay u tahay maaragtay liidanaan bay u tahay laana waxa weeye bini aadamku wuu khaldami karaa politically khaladkiisana wuxuu ku sixi karaa inuu yiraahdo khalad bay ahayd marka taa waxay ku xiran tahay iyaga say uga baxaan laakiin ummadda Soomaaliyeed hadda way aragtay inay arrinta khalad ahayd waana uga mahadnaqaynaa baarlamaankii Soomaaliya labadiisa goloba iyo dhammaan maaragtay siyaasiyiintii sida geesinimada leh arrintaasi uga dhidhiyay وهاجاك مركا رالي جلينتا أي حكومة صوماليا كبحسي كصاب سنة ديبدي عبد الكريم شيخ موسى قلب النجح يوليبا كشيجدي أورك أو أنا لفي هلجن كبا
mid argagixisa mas-uuliyiinta ugu sarreysay oona laf ma qaadatay mise weli mayna qaadanin maya si haddii loo eego lama qaadanin inkastoo la oran karaba maaragtay raagelinta ay hadda bixiyaan farmaajo iyo khayro hadda ka tegay wax hadda qiimi ahoo ay u soo kordhinaysa iyaga unbay sharaf u ahaan lahayd inay qaladkooda qirtaan laakiin waxay u soo kordhinaysa ma jirin ururka ONLF markii argagixis ay ku tilmaameenna waxa weeye caalamka ayuu ka furnaa oo maaragtay meelaha ugu badan ee argagixisada caalamka lagala dagaalamo ayay ka mutaharaadayeen xafiisyana ku lahaayeen marka iyaga unbay maaragtay u ahayd يعني نوع من الشرف دعيو إثيوبيا كورالي جلين نظام كهراء مارت تبي لفتون بكورالي جلين أما واحد بالورن كرا أود مارت ما الله هنا والله صعنا سومالي وجا قبر أيا بمارت أيا كتل كو أمر كتاجليني مركا يجا كحشون يولي مارت إنه يرالي جلين جيسني ما له أي أرنتا كبحيان لكن واحد قيمة وهذا وأورك وقفر ديو مجرو هو هجاج أسبوعيا واحد سعودي كلهم بلارن oo dhex maray hoggaanka dawlad deegaanka Soomaalida iyo mas'uuliyiinta ONLF muxuu ahaa kulankaas muxuu ka soo baxay oo midho ah oo dadka Soomaaliyeed ee iyagu aad indhaha ugu haya rabshadaha ka soconaya dalka Ethiopia maxaa rajada ka soo baxday oo dadka Soomaaliyeed la qaybsan kartaan to inay waxa way ku qasban yihiin ummadda Soomaaliyeed ee halka degan in ay wada hadlaan barnaamij maaligtaan sababtoo tahay dhammaan qowmiyadaha Ethiopia qowmiyad walba way shirtay barnaamij baan meel u yaala marka nacasnimo iyo waxay u tahay maaragtay bisayl la'aan siyaasadeed haddii aan intay kulmaan ay barnaamij radab ah ay meel ay isla dhigan waayaan marka waxaan u maleynayaa odayaal dad fara badan iyo aqoonyahan fara badan arrinta way ka shaqeeyeen maamulka meesha ka dhisanna waxa weeye majhuud fara badan iyo wuxuu geliyay maaragtay effort fara badan buu geliyay oo aan la qudhigeedo effort fara badan bay gelisay marka waxa weeye waa in sidii loo sameyn lahaa maaragtay barnaamij lisla og yahay oo ama Ethiopia haddii ay wada jirto iyo haddii ay kala jirtaba lagula xaali lahaa marka waa lagu qasban yahay marka weli ma dhamaystirmin waxaan filayaa marka uu dhamaystirmo in maartay bayaan rasmi ah laga soo saari doono laakiin Xuseen maxaa diidaya guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ee dawlad deegaanka ku nool haddii ay yihiin shacab isku mid ah dhaqan iyo diin iyo luqad iyo dhinac walba oo ka fiiriso maxaa diidaya iyagoo hal xisbi ah inay Ethiopia weyn ay wax la qaybsadaan ilaa waxaan ognahay dawlad deegaankuna waxay raaceen xisbiga PP ee talada dalka haya ONLFna waxay noqotay xisbi iyaguna raba in ay talada deegaanka qabtaan arintaas miyayna kala qaybsanaan keenaynin way muuqataa laakiin waxa la oran karaa siyaasad xumada ummadda Soomaaliyeed oo dhan haysata iyo tiiha maartay walaahowga ummadda Soomaaliyeed min maartay 19 ilaa iyo hadda kullay gobolkanaga lagama oran karo maartay uu ka baxsan yahay ugu dambeyntii dad Soomaaliyeed u baanu nahay way iska jiraa waxyaabo fara badan waa kaga marsanoo anagu dad isticmaar gumaysi ku jiray baanu ahaynoo maartay waxyaabo fara badan aan kaga duwanahay way jiraa jamhuuriyadda inteeda kale marka waa lagu qasban yahay in maartay la isu yimaado barnaamij rasmi ah oo siyaasi ah oo ka tarjumaya himilada iyo maartay wixii ay hiigsanayeen shacabkan taariikhda ummadda halka ku nool si sahlan laguma iloobi karo qofkii isku day inuu si sahlan ku iloobo ama ku tirtiro waxa weeye isaga un baa maartay meel cidla ah ka dhacaya ay taariikh xumo shacabkan waxa weeye laga soo bilaabo waagii uu maartay Minilik uu ku soo duulay ilaa iyo maantadan la marahayo waxay leeyihiin hadaf bay leeyihiin dhiig far badan iyo ummad iyo maartay hanti far badanna way ku lumiyeen marka waxay u baahan tahay in maartay arinta marxaladeeda maartay kolba marxaladda ay taagan tahay laga ambaqaado laakiin aan taariikhda sida u ahayd aan laga been sheegin marka waa lagu qasban yahay Xuseen Nuurow markaad fiiriso halganka ONLF wuxuu ahaa halgan fara badan oo ay waqti badan geliyeen laakiin dadka Soomaaliyeed intooda badan ay kaga didaan magaca isaga ah ee ONLF hadiiba uu noqday xisbi
u tartamaya inuu deegaanka ka taliyo oo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ee kala duwan ee qabiilaadka kala duwan ah uu taladiisa qabto ma laga yaabaa mustaqbalka magacaas in aad bedeshaan oo magac Soomaalida oo dhan mideeya aad la baxdaan oo su'aashaasi horta meelo fara badan bay ka taagan tahay laakiin waxaa daba socota oo iyada qudhigeedu maaragtay ay salka la gelaysaa magac Soomaali oo la qaato qabiilkiima lagaga badbaadaya su'aal meesha ku jirta wey hadda la socoto masalan marka la yiraahdo USC iyo SNM iyo SSDF iyo SBM iyo qabiilkiima lagaga badbaaday jawaabtu waa maya wey magacan ogaadaya marxalad buu soo baxay ururka oo aan lafna lama oran karo maaragtay magaca haddaan oodaas aan maaragtay aan laga shidaal qaadanaynin lama oran karo waxa weeye waa urur qabiil lama oran karo sababtoo tahay qabiil dan guud iyo gobonnimo ma doono qabiil wuxuu u dhisan yahay dan shakhsi ay dan qabiil buu u dhisan yahay marka maadaama oo aan laf ay ku baaba'day daba socotay ilaa haddana daba socoto dan guud iyo dan ummad Soomaaliyeed ma aha urur qabiil maaha laakiin magaca ooda ah waa arrin meesha ku jirta weeye waana marar fara badanna waxyaabo fara badan baa la iska weydiiyey waxaan xasuusanayaa xitaa shirka ugu dambeeyey ee aan la galnay ugaasiyada iyo salaatiinta gobolka oo maaragtay intii admiraalka uu hayay in aan weydiino oo admiraalku uu yiri idinka ugaasidii iyo salaatiintii iyo maaragtay ummadda oo hogaaminaya odayaashii ah haddaa isku tagtaan aad keentaan magac namidayn karo oo aan qaadano diyaar baan u nahay inaan maaragtay magacaas aan qaadano kulligood intii meesha shirka fadhiday oo maaragtay ahaa dhammaan maaragtay ugaasida intii ugu badnayd iyo salaadiintii intii ugu badnayd ee meesha fadhiday mid walba waxay yidhahdeen hal ugaasmoogi intii kale waxay yidhahdeen wax cuqdad ahoo aan ka qabno magacan ogaadaya ma jirto sidaa ku halgama ururkiinana sidaa ku mideeya muhiimadda un waxa weeye inaad cadaalad iyo himiladii uu shacabkan uu lahaa aad ka shaqaysaan marka waa arrin meesha ku jirta wey xuseen maxamed nuurow aqoon-yahan baa tahay ururkana in badan ka tirsanaa adoo la hadlayo qof Soomaaliyeed oo u arka magacaasu in uu wiiqaya halgankan maxaa mid iyo laba ah oo aad sabab uga dhigi lahayd sababta aad magaca ugu dhagan tihiin من fara badan baan dadkaan u sharaxnay ku dhaganaanshaha horta magacan ma aha sacred ma aha maaragtay ma aha wax maaragtay muqaddas ah oo haddaan annaga ka tagnana aan maaragtay dembi galnay haddii aan haysanana aan dembi ku jirno waa sax weeye magacan waa magac qabiil magacii baa la yidhaahdaa isla mar ahaantaana yacni dalal xitaa maaragtay caalamka ma aha ogaadaya oo keli ah dalal fara badan baa magac qabiil oo loo bixiyey oo maaragtay iyadoo majority-ga halkaa degan la eegayo waa fara badan yihiin oo hadda kuma soo wada tirin karo saasoo jirta haddana waxa weeye annaga uguma dheganin magacan hab maaragtay hab qabiil uguma dheganin waxaan ugu dhegannahay inuu yahay magac dalkaasi loo yaqaano waana xaqiiqo jirta wey haddaad hadda soo qaadato taariikhda markaad dib u baarto xitaa dagaalkii 77kii the Ogaden War baa la yiraahdaa lama yiraahdo maaragtay Somali War ama Ethiopian War ama maaragtay WSLF Western Somali Liberation Front War cidna ma tiraahdo Ogaden War baa la yiraahdaa khariidada iyo maababka caalamka oo dhan Ogadeni ayaa ku qoran marka waxa weeye waa arrin la factirsatay weeye oo u baahan waqtigeeda in maaragtay laga hadlo u baahan qofka wuxuu leeyahay unbuuna magaciisa bedelaa wax uusan lahayn magaciisa ma bedeli karo lamana ogolaanayo haddaad u fiirsato gacankan carabta Persian Gulf waa caalamka u yaqaana laakiin dalalka carabta waxay dhahan Arabian Gulf bay yiraahdaan Arabian Gulf cid ka ogolaatay ma jirto sababtoo tahay waxa weeye lama ogola in looma aqoonsan in iyagu leeyihiin waa bad caalami ah loo aqoonsan yahay gobolkana waxa weeye markaad adigu yeelato ee aad hantido ee aad u madax banaanaato magacaad ururta waad u bixin kartaa laakiin inta aadan u madax banaanaanin caalamka siduu u yaqaano ayaad ku qasban tahay inaad u wadato وهاجاج حسينو جبجبة برنامج كوحان كورهيا أو أن مقلي إن كستونا نصيب وهلين إن أن أركون أخريو إن أبوق قرطي أبلبوق إستجا محوك صاب سنة مركو هري بوقاسي وحوك صاب سنة أرتوا بوقا وما دايري جيجوها وحس قرك جيجوها والله صعدت كساسين تأه
waxay leeyihiin mudakara waxa la yidhaha ama diary waxa ay qoraan oo xusuustooda ah oo ka tarjumaysa muddadii uu soo hayay maaragtay uu arrintan uu kusoo dhex jiray marka waxaan nasiib wanaag anigu waxaan ahaa maaragtay dadka maalin walba maaragtay diiwaangeliya xusuustooda marka ilaa iyo dhowr iyo 20 sano xusuustooda oo aan halgankan kusoo jiray ayaan markaa iyo taariikhihii kale marka diary-gaasaan markaa aan rabay maadaama aan hadda aan garanaynin wax uu ilaahay cumriga ilaahay baa gacanta ku haya laakiin in aan sii noolaan doono aan garanaynin waxaan marka doorbiday in aan xusuus qorkii halgankan aan ku lahaa min maalintii aan soo bilaabay dhalashadaydii ilaa iyo muddada aan hadda ugu dambeysay ee aan maaragtay aan gudaha galnay inaan wixii maaragtay mudan in la qoro inaan qoro marka waa xusuus qorkaas weey waa hagaag Xuseen oo gabagabada barnaamijka dad fara badan oo Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan u arka halganka ONLF ee muddada 30 sano ah ka badan soo socday iminkana xaaladiisa aragtidiisa siyaasadeed isbedeshay ayaa ku daawanaya iyo waliba kuwii deegaanka oo iyaguna kuwii aad u halgamayseen aqoonyahan baa tahay deegaanka ka soo jeeda muddo fara badan iyo waqti badanna geliyay bal in mar aad aragtid dalka Soomaaliyeed oo aayihiisa ka tashada gabagabada barnaamijka maxaad odhan lahayd Xuseenow gabagabada barnaamijka waxaan oran lahaa Ethiopia waa qowmiyada weeye qowmiyad walbana dan bay leedahay danteedii ayayna ka shiraysaa go'aan baana meel u yaala dantiina ka shira kam u midooba waxa weeyaan dan iyo diin iyo dal baynu leenahay oo inaga dhaxeeya sidii aynu u difaacan lahayn dantaas iyo dalkaas iyo diintaas ayaa maaragtay ayaa maanta ina saaran taariikhdana jiilka maanta nool ee aqoonyahan ee siyaasi ah ee oday dhaqameed ah bay taariikhda ay xusi doontaa aakhiri adduunba marka waxa weeye laga baxo waxyaabihii hore iyo maaragtay wax aan jirin iyo maaragtay isku qabsiga laga baxo loo midoobo sidii dalka iyo diinta loo difaaci lahaa waagaag Xuseen Maxamed Nuur aad iyo aad ayaa u mahadsantahay waxaan kaaga mahad celinaynaa anoo ku hadlaya magaca barnaamijka toddobaadka iyo Toronto sida wanaagsan ee aad barnaamijka nogala soo qayb gashay waxaan ku leeyahay nabadgal habeen wanaagsan waana ismaqli doonaa haddii Allah awoodda leh ogolaado barnaamijka ayaa waxaan ku soo qaadanay waraysi aan la yeeshay aqoonyahan Xuseen Maxamed Nuur oo xubin ka tirsan golaha dhexe ee ONLF wuxuu ku sugan yahay dalka Qatar caasimadiisa Dooxa waxaan ka waraystay guud ahaanba xaaladaha ka soo cusboonaaday geedi socodka siyaasadeed ee dalka Itoobiya iyo waliba waxyaabaha ka khuseeya Soomaalida iyagu degan deegaanada ay Itoobiya maamusho ee Soomaalidu ay leedahay barnaamijka waxa idin soo saaray anigoo Maxamed Cabdullaahi Xasan barnaamij lamida intaanu isugu iman doonana daawadayaasha aad ka u jecelahay intaas iyo nabadgelyo